okay marka halkan kan waan samaysana background laakiin kan aan rabnaa inaan samaysano kan see ku samaynayna simple halkan aan tagno halkan div kan ku samaynayna waxaan leenahay div kan class name aan siisan doonaa class name kan siinayna muxuu noqonayaa kaba soo qabo waxaan leenahay sub container kaba soo qabo sub container magacaas aan siinayna kulli waa CSS ka caadiga taqaanay iyo HTML ka caadiga baan qoraya laakiin waxyaanan rabaa inaan hadhooti aan idin dareensiiyo okay marka inta markii saas tahay maadaama aan rabno qaybtan waa headerkii qayb kuwa kale oo task la yiraahdo isku xigo iyo qayb kale oo button iyo magaciisi halkaas jiro soma marka kuwaas hadaan rabno inaan sameeyno maadaama header aan rabno asiga div aan siinayna waxaan leenahay div okay div kan waxa waaye class is title head ama up header iska bada up header deetana up header kaas maxaa ku jiro h1 oo ay ku qoran tahay you have 3 to do's okay كلمة سو قرنتها كينا you have 3 to do's okay كيتي the capital clicked that's it marka halkaas halkan ku qornay waxa ku xigo taskiyadan maxay ka kooban yihiin laba shay ka kooban yihiin qayb qoraal ah iyo qayb icon ah okay marka halkan aan tagayna waxa lana div then div kan waa taskiga macnaha taskiyada marka kulli ama container oo samaysa ama caadigooda meeshan ku daadisana matter marka halkan waxa lana class name then task ama task container task container then halkan marka waxaad keensataa hadaad doonto div caadi ah si aad taskiyada aad u wada manage gareyn karto marka halkan waxa leenahay class waa taskiga kaliya halka taskiyan ka hadlayo markan waxaan sameynayaa taskigaas kaliya marka halkan waxaan leenahay task then taskigaas gudihiisa waxa ku dhex jira laba shay labada shay oo ku dhex jira maxay kaliyihiin waa h ama waxa tiraadaa paragraph iyo icon okay marka paragraph ka halkan ku qornayna waxa leenahay paragraph ama b tag caadi ah deetana paragraph kan waxa ku dhex jiro to do sama to do ama task 1 hello okay task 1 aan dhaxgeli sidoo kale to isla taskiga waxa ku dhex jiro icon sama halkaana marka waxa leenahay icon ama sorry icons fara badan ay jiraan aad isticmaali kartid hal mar halkaan aan tagno waxa leenahay react icons okay react icons mida ani aad u isticmaalaa jiro waan aad u jeclahay aan aad u isticmaali jiray marka halkaan aan ku dhufano markuu si shashadid hello mb hey marka react icons kan aan rabnaa inaan isticmaalno okay react icons kan very easy way aad u fiican yahay marka kanaan soo import gareysanaa sidoo kale wuxuu leeyahay wala intii ugu jirtaan maleenaya wuxuu leeyahay inaad baaran karto muxuu ahay iconada inaad yani kala barbaari karto kulli icon karabtaha inaad soo select gareyn karto sida font awesome oo kale marka font awesome aad doonto waxaad doontaa isticmaali kartaa marka kanaan ku soo darsanna ama npm isticmaal ama yan isticmaal ama npm isticmaal marka kan aan isticmaalana kan aan soo koobiyeenayna deetana click okay yes save intaan waan jaraya deetana halkaan paste ku leeyahay waan soo install gareynaya icons ku dhan okay marka uu soo degaya that's it adu uu soo degay wax walba oo fonts ah marka waxaan rabaa meeshii aan ka select gareyn lahaa marka home page kooda halkaan aan ku dhufanaya deetana kulli gidka caadigu u keenay laakiin waxaa jiro meel documentation ama view docs I think inay yahay yes waa kana soo ma jidan marka halkaan fontiyo fara badan icons fara badan ku jiraan nooc walba bootstrap icons oo ku jiraan kuwa kale to aad u fara badan font awesome icons hada ku dhufato
means wax walbo icon ah halkan uu keeni doona soo ma jeed ya marka iconka ku dhufato iconka dad ku dhufato means wuu ku select gareysan yahay marka dartan waxaan rabnaa close aan rabnaa halkan aan ka raadinayna waxaan leenahay close kan oo kale ma waasi close icon waa isku mid sax asagan ku dhufanayna deetana halkan aan tagi doonaa inta un baan ku soo import gareynayna waxaan leenahay paste marka tiraahdo means magac un buu ku soo siyaasiga importiga ma soo siin halkan aan marka tagayna waxaan leenahay baraakadan furayna ama taagan furayna deetana intaas markaan dhaano halkaan aan kusoo xirno hadda wax magacana ma siinayo oo hadaan intaan tago aan iraado space kulay ma hayo laakiin intaan tagay waxaan leenahay import deetana waxaan leenahay waxaa soo import gareysaa midkan okay positionku ku jiro waa inte so I think inuu ku jiro close okay sorry okay marka import gareysanaysa noocan waa react icons aad ka dhex raadinaysa macnaha documentation kooda sida ka muuqato intaan soo koobiyeynaya deetana waxaan la imaanaya halkan paste port deetana waxaan rabaa kan inaan soo koobiyo kan marka wuxuu ku jira AI qaybta AI magacan halkan waa isbedbedelaa mar walba AI daas ku jira marka halkan aan tago folderka waxaad ka raadinaysaa AI la yiraahdo waxaad iga keentaa iconkan marka iconkii oo ujeedaan saas ugu dhex jira macnaha AI gaas marka iconka waa kaasa halkaas saasan ku keenay marka hadaan intaan save aan iraado kaba soo qabo intaan marka waxaan leeyahay npm start okay marka our browserka yes okay موجودنا ايكونك كل واحد ستايل مسمين لكن ايكونك وان كيني ايكونك marka dad u baahan tahay ina stylekiisa ama colorkiisa waxa soo dhan bedesho kulli halkan inuu parameters ku qaadanayn rajayna colorka iyo wax walba u baahan tahay waa ka bedeli kartaa ama parentigiisa color ka bedeli kartaa macnaha very easy kulli stylinka hal mar u soo jeesanin okay marka kan hadda waa sameynay task 1 okay copy كل HTML كعادي كان سمينونا لكن وحارب إن ديب هالمر إن كتصي وحان إن فضلين كرن يو تسك 3 كي 3 تسك سهيسني الكان مركا حلنا 2 يو 3 مدول بنا وحولية كلوز كسولية okay بحاول قدام بين مركا okay أنت مركا حكسو راح بحنا قيبتان تسكية ذا okay تسكي container كل تسكي container sorry ayaga dhan aan soo celceliyay laakiin waxaan rabaa taski containerka inaan reebto intaan soo koobiyay paste deetana kan soo koobiyay gudihiisa isagana paste then kan uma baanin halkan waxaan rabnaa meesha ugu dambeyso ah in taski container waa kana laakiin kan ugu hooseeya waa footerkii macnaha halkan daa fiirso footerkii waay footerka maxaan sameynaynaa kaba soo qabo footer la iska leh footer maxaa ku jiro laba shay labada shay maxay kala yihiin hello input iyo button okay waa input iyo button marka input caadi ah isticmaalaysaa oo HTML ka taqaanay iyo button ku dhex jiraan okay iyo button marka labadooda style na usmeyn doona waa style garana actual sida uu yahay aan rabnaa macnaha inuu ku keeno marka halkan waxaan leenahay class name class aan siisanayna waxaan leenahay task input wax functionality focus kam saareen markaan okay task input iyo class kaleeto oo ah task button ama btn yes it inta marka waa noo sameysan tahay wax walba aan uga baahnayn waa sameysan okay intaan markaan save garano kulli wax style malaha application ka ujeedaan sidiisu ku yimid marka style kan sameeyna bal waxaan ka bilaabeynaa qaybtan kulli baadigaas waa noo sameysan yahay kan aan soo koobiyeynaa waxaan tagnaa halkan markaan tagno in dots paste then halkan gudihiisan ku jirnaa soo asaa marka background aan sameynayna waxaa leena background colorkiisa
white كل HTML كي CSS كا تقاني استعمالنا marka background kiis white and that's it background kiis white oo ka dhigay marka buttonka karalaada buttonka waxa kuma dhax qorin self closing tag ka dhigay sorry marka buttonka siga waxaan ku dhax qorinaa submit amal inuu qoran darajada submit that's it kali submit ku qornay yes marka submit aan ku qornay marka background kian ka bedelna kaas marka waxaan rabnaa in yani uu balaciisa uu ahaado fit to the content okay widthkiisa fit to the content and heightkiisa waxaan rabnaa inuu fit ku ahaado contentiga ma rabna inuu meelaha iska wareego macnaha okay inuu balaca intuu doono uu ka qaato ma rabo inuu datada ku jirto inuu ku ekaado macnaha okay marka padding waan u sameynayaa si xoogay uga soo sakadaan waxna hoos ugu xiriiriyo marka halkan waxaan leenahay 10 pixel kaba soo dhig that's it intaas muhiim waa sidoo kale waxaan u baahanahay inaan dhax bartanka geeyno okay dhax bartanka application kan geeyno halkan aan tagayno waxaan leenahay display flex box hada doonto isticmaal kartaa justify content center dhax bartanku geeyso ma waxaan rabnaa inaan position kan dhax inaan keeno meeshaan dhaxe inaan keeno markuu shashadii hello هذا ما حسميننا align items ama align items center dhaxbartanka page-ka meesha ka muuqdo iyo keena markay soo ma jeedaan marka intaas hadda waan sameysanay qaybtaas waan sameysanay background-kan waan noo sameysanay kanna background-kiisa waan noo sameysanay kulli shadow generator tagiisa ayada hadhow ka keeni doonta laakiin it's not matter xilligan intaana koobiyeysanayna waxaan rabnaa headerka keliya inaan markaan ka shaqeyno headerka dot header aan leenahay deetana intaan tegayna headerka waxaan rabnaa in uu in muxuu ahaay inuu xoogaa balac yeeshaan rabnaa dhinacyadana inay xoogaa laakiin inkastoo aan dhaana meeshan fit to the content laakiin headerkan balac siinayna balacaasan siino ay isaga dhan qaadan doona marka halkan waxaa leenahay widthkaas siinayna wuxuu noqonayaa waxaa dhahdaa kaba soo qabo 200 oo pixel haddaan dhan waa yaryaa 200 oo pixel laakiinse waxaan leenahay 400 oo pixel 400 oo pixel it is a little bit good 450 pixel waa balaca oo intaas uu ku fadhiisanayo marka intaas markaan dhahno intaa marka waxaan leenahay background color ama text align center wax walba ku qoran dhaxdaas uu geyn doona sida halkan headerka waxa ku qoran dhaxda uu geeyay sidoo kale font size-kiisa inaan bedelnaa rabnaa laakiin fontiga dhan aan dhahno font family waxaa dhahdaa sans serif okay sans serif iyo Arial equals midkii computer ku jiro okay that's good marka halkaan aan tagno waxaan rabnaa inaan h1 kaas inaan size-kiisa xoogaa yareeno iyada wixii ku dhex jiro h1 ah saas ma heno okay deetana waxaan leenahay font size-keeda waxaa ka dhigtaa something waxaa dhahdaa 0.9 rem just like that save aadan u yareeyay laakiin 1.1 badee 1 xataa iska okay waaye marka intaas 1.2 camal waxaa taas waxaa macquul ah okay good intaas baan ugu filantahay marka inta marka waxaan rabnaa paddingka inuu xoogaa yar inuu kor iyo hoos wax yar ka soo sakado hoostiisana ay underline noqoto marka halkaan aan tagayna waxaan leenahay padding dhinacyada waa iska 0 oo dhinacyadiisa ma rabno inaan wax kasoo dhaqaajin laakiin kor iyo hoos waxaan leenahay 10 pixel dhinacyadana 0 iska aadan okay halkaan waa kasoo sakana labada dhinacba okay border waxaan leenahay border bottom is 1 pixel solid and waxaa tirahdaa gray okay save that's it underline yar u sameeyey saa ujeedaan laakiin halka haddaad fiiriso derbi taaganta sooma derbi waxa keenaya waxay tahay halkaana padding kusoo darnay marka padding inaan inta ka reebnay noqonaysaa
intuun baan padding ka reebaynaa haddaan ka rabno labada dhinac buu uga tegi doontaa okay marka inta xoogaa yaraan kordhinayaa inta waxaan ku darayaa 15 aan ka dhigayaa ama 13 ama 15 but it's good save that's it waa kaasaa marka intana colorkeeda wax yaraan ka bedelaa waxaan leenahay color gray oo xitaa daag xigo aan ka dhiganaa kanna graygiisa waxaan leenahay iftiinka xiji same way save clear okay taskiyada marka maxay noqonayaan symbol ayagana waan soo koobiyeynaynaa ama task container kan soo koobiyeynaynaa waxaan leenahay task container kulli macno ma noo sameynayo laakiin kulli markaan u baahanaan isticmaali doono marka hadda kulli hoosta halkan si iskaga jiraan oo kaleeto un baan rabnaa inay iskaga jiraan marka muhiim nooma aynan containerka noocaasan isticmaalno marka intaan tegayaa waxaan ka saarayaa kulli waxaan CSS-kan JavaScript-kan HTML-kan focuskaygu ma aha inaan sharaxaad fiican iyo waxaas inaan ka bixiyo okay kulli waa fahmi kartaan HTML iyo CSS-ka marka containerkaas iska saaray taskiga kaliya focus ka saari doonaa taskigan tegayaa waxaan leeyahay dot taskigaas waxaa sameysaa si horta labadooda inay isdhinac yaalaan aan rabaa sorry inta kan sidiisii ugu soo celiy okay save taskiga marka waxaa rabaa inay isdhinac yaalaan asiga iyo wixiisaba marka intaan tegayna waxaan leenahay horta background aan u sameynaynaa background color is gray si waxay noogu muuqdaan taski walba saas ugu muuqda waxaan leenahay midka ka hooseeya ama border bottom macnaha waxaad siisaa 1 pixel solid this color c okay colorkaasaan siinaynaa marka colorkan xoogaa waa yaraa khafiifinaynaa that's it marka kolley waxaa fiican inaa ka dhigta hexadecimalka safe intaas markaas ka garano waa ujeedaa mid walba si intuu ku fadhiyo soma xariiqada markay u sameeyo okay marka in waxaan rabnaa waxaan i sinmaan maxaan isticmaalaynaa okay flexbox aan isticmaalanaa marka halkaan aan tegaynaa waxaan leenahay display flex okay taasaa waxoogaa yaro wanaagsan inaan isticmaasho flex display flex markaan dhahno justify contents space between labada dhinac inaan kala tagaan rabnaa space between labada dhinac ay kala tegi doonaan marka asaga marka waxaan leenahay baadina u sameynaynaa sida halkaan u jeedid wax baadina ma laha sooma baadina ma laha macnaha space around haddaan dhaa eeg around okay muujida dhaxda isku wada keenan dhaxda ma wada rabo inay wada yimaadaan waxaan rabaa inaan dhinacyada ay ku wada jiraan laakiin baadin yar aan kusoo kala sakeeyo okay space haddaan event haddaan dhahno eventually okay isagana waa lamid macnaha qaabkaas kaleeto way marka halkaan between aan leenahay deetana halkaan waxaan leenahay baadin kor iyo hoos waxaan rabnaa inuu kasoo sakado 10 pixel labada dhinacna inuu kasoo sakado 5 pixel xoogaa yar labada dhinac xataa waa lagu jiraa ama kor iyo hoos xataa waxaan leenahay 13 pixel labada dhinacna waxaa kasoo sakataa 10 pixels ama 8 pixels good adartaan waxaa waaye waa la qaadan karaa soo backgroundka marka backgroundka kaliya waa inuu noo calaameeyaan ugu talagalay wax background marmo sida halkan niga muuqato labadan waa ishabahan soo laakiin colorka unbaa yaraa xoogaa xariif ahayn colorkii rasmiga black aan isticmaalno marka horena waxaan u weeray colorka rasmiga lama isticmaalo colorka rasmiga ha isku dayinaa isticmaasho colorkaaga ha noqdo color wax ku jiraan black hadaa rabto black ay dhawaadkiisa isticmaal laakiin black caadi hadaa isticmaasho it's not good okay marka halkaan colorka noocaasaan ka dhignay marka kan wax colorkiisa isma bedelinaysaan rajeynayo asigaan u tegaynaa waxaan leenahay okay asigaan galaasaan siisanayna ama isbaan caadi ah marka halkaan galaaska markaan siino waxaan leenahay icon deetana copy paste and paste save then halkaan nakeen waxaan leenahay icon colorkiisa marka waxaan ka dhiganaynaa colordan oo kaleeto ama red xataa haddaad doonto waa ka dhigan kartaa si wixii aad u yaraa adkayso gaduud macnaha xoogaa qofka waanin uu qaadanaya wuxuu isleeyahay meeshaan haddii lagu dhufto
action dhici doono waxaana bixi doono marka that's danger macnaha colorkaas siisan okay واضح marka inta hadda waa sameeyna marka intaan hadda waa noo sameysan tahay inta marka maxay noo dhima marka qaybtan hoose kulli waa iska ignore garaynayna font size laakiin qaybtan footerka symbol iyadana intaan tagayna waxaan leenahay soo koobiye footerkan soo koobiyeyna deetana waxaan leenahay paddingkaaga adiga waxaad qaadanaysaa in little bit waxaa siinayna paddingka asiga waxaa siinayna taska camal taska intuu yahay camal aan siinayna kaba soo qaad taska camal aan siinayna save okay good positionkii wax dhan wuu ku wada fadhiyaa okay laakiin qaybtaan kaliya aan ka rabin intaana save lena okay intaas markaan sameyno paddingka iyo waxaas oo sidaas ah gudihiisa waxaa ku dhex jiro taska input kana soo qaadanayna intaan tagayna dot paste then inputka kulli waxaa rabaa inuu positionka inta uu ku filan inuu ku fadhiisto waxaan leenahay flex 1 waxii adi meeshan inta badan adi qaada macnaha okay flex 1 marka space inaan siinana waa gap aan isticmaalayna marka gap then waxaan leenahay 10 gap 10 ah u dhaxaysay marka I don't know gap it's not working right there marka ama intaan tagayna waxaan leenahay margin right 10 pixel kasoo siko darbiga waxa ku jiro 10 pixel kasoo siko very simple hadda marka xoogaa padding yar u rabaa waxaan leenahay padding kore hoos waxaan leenahay kaba soo qabo 15 pixel dhinacyadana waxaa dhacdaa 10 pixel sample oo aadan u weynay inta waxaan leenahay that 13 pixel weli waa badan tahay 10 pixel okay 10 pixel oo square ah ama inta kulli qoraalka marka lagu dhex qoray good positionka rasmiga waaye marka 10 pixel oo dhinac walba ah kasoo good marka padding kaas saasan ugu sameynay haddaad doontana kulli styling waxaad doonto oo u sii baahan tahay gelin doontaa oo meeshaan aad uga baahan tahay marka buttonkan asagana waa keenaynaa asagana sidoo kaleeto waa soo select garaynayna waxaan rabaa inaan hal mar wax dhan si isku bedelayaan rabaa inaan hal mar in la wadaago paste deetana intaan tagaynaa padding yaraan siinayna waxaa leenahay paddingkiisa soo koobiyey kan intaas markaan soo koobiyeyno sidaas ayuu noqon doonaa paddingkiisa marka styling kulley button ah adinka idin daanaya kulley waa ka agdhowya anikii aan rabay backgroundka un baan rabaa inaan bedelo waxaan leeyahay backgroundkiisa background color white okay intana borderkana xoogaa yara dilooya border sidii hore ku fiicnaa sida hore muu ku roonaa marka inaan style fara badan sii gala marba marka intaanan ku ekeynaya stylinka marka simple intaan markii saas inoo tahay sheekadan haddaa halkan fiiriso anaga waxay dhan hal css aan iskugu keennay ilaahay mahadiis intana waxaan soo celcelina waxyaabo badan marka component intay ka imaanaysaa sheekada component la yiraahdo component meel kale kama imaanayso applicationkana analyze garaynaynaa simple waxaan fiirinaynaa qaybtan waxaan horta labadan waa isku mid saddexdan waa isku mid soo maa intay ka imaadeen halkan intaan soo maa intaan iyo intaan waa soo celcelin halo marka okay hadda ma aragtaa intaan marka waa soo celcelin intaan marka waxaa la rabaa in aan one component inaan ka dhigno okay component fikradda ah waa noocaas maadaama aan soo celcelinayno ayada oo mar walba loo baahan yahay one component aan ka dhiganaynaa halkaan aan tagaynaa waxaan leenahay file aan furanaynaa ama file fur ama iska bada isku meesha ama positionkan ku samey halkaan aan ku sameynaynaa hadda waxaan leenahay const waxaan leenahay taskiga waa inoo kana asiga okay taski halkaan inoo yaalaa intaanaan soo qaadaynaa copy ama cut deetana intaana waxaan leenahay return
push that haddaad doonto koobiyey file caadiyaba gey halkaan waxaa leenahay task okay task.js then halkan ku export garay halkaan marka waxaa dhahdaa export default kadibna task intaas markaa tiraahdo maxaa loo baahan yahay intana import react okay react that's it import react save inta tag markaan tagno waxaan deleteynaa waxaan halkan ku jiro dhan rabishka ah inta waxaan ku bedeleynaa task okay asaga isla markiiba soo import garanayo position ka soo qaaday oo u jeedaan task then intaan koobiye paste dheh afaran ka dhigaxtay okay inta wuxuu leeyahay iconka halkan tagay hadaad fiiriso iconka u baahan yahay soo import garay kanan qaadaynaa iconka intaan ka dhaafan lena loogama baahna position kana looga baahan yahay that's it save intana tag save garay symbol afar xaba ayago ah laakiin information kan inuu isbedelaan rabnaa okay information kaas 1 iyo 2 iyo 3 aan karnaa this habeen dambe ka hadli doonaa sida outside kaas wax looga bedelayo laakiin almuhim intaan hadda hal component san kala dhigno waayo marar badan aan isticmaali doona that's one component okay maanta haddaan rabo inaan color bedelo uma baahni mid walba inaan u imaado color ka bedelo ama functionality haddaan rabo inaan bedelo maanta kan markii delete la yiraahdo cancel markii la yiraahdo kaleeto waxaan rabaa in uu pop-up menu soo saaro marka mid walba ma dhahayo functionkaas uu yar waxaas ma dhahayo halkan un baan ka bedeli doonaa wax walbaan u baahnay functionality okay marka very easy way qaybtan kaleetana kolley adinka idin daanaya in waxaan dhan aad kala aruurisaan oo components gooniya ka kala dhigtaan kanna component header la yiraahdo halkaan oo kale aan tagayna kaba soo qabo header.js header task okay intaas markaad tiraahdo intaan unbaa soo koobiyeynaysaa bas symbol intaana waxaan leenahay cat deetana halkaan aan keeni doonaa waxaan dhihi doonaa import okay rf intaas unbaan halkaan keeni doonaa marka waxaan dhihi doonaa header task okay ama task header waxaa doonta badhe intaan paste ku leeyahay marka intaanan koobiyeynaya save ayadana halkaan aan keenaya symbol waana soo import garay that's another component waana application sidii uu muuqdaa laakiin components aan kala dhigna qaybtan footerka ayadana sidoo kale kat soo dheh halkaan keen footer dot task yes ayadana waxaan leenahay import ama snippet-ka caadiga isticmaal waxaa isticmaashaa kaas ama ka midkaa doontaba marka halkaan inta waxaan leenahay footer ama the footer la iska dhaafo inta marka kanaan paste ku leenahay deetana intaanaan soo koobiyeyna intaan paste ku leenahay that's it save inta tag symbol footerkii meesha la canvas footer clear that's it component is waan soo component garanay hadda halka markaa firis code-ka waa sii yaraanaa mar walba so code-ka waa sii yaraanaa faylashna waa badanayaan faylasha kullama ay bataan it's caafimaad leh waa macnaha waayo waxaa sahlanaanaya maintenancega okay واضح that's marka components aan hadda isku keenno waa waxan application marka qaybtan waa hal component gooniya kan waa component kan waa component everything is one component clear how intaasan ku ekaysanayna habeen dambe inta laga gaarayo qof walba isku dayo muxuu ahaay in uu habeen dambe keeno barnaamij qof walba inuu isku dayan rawaaya ala qof macna qof walba inuu sameyn karo components saano kale isku xiran